walba waa sida u jeedaan maanta qof walaalkaaga hadaa xaasidid ama horumarkiisa aad ka hor istaagtid maanta shacabkiisa inay soo guuraan kuma imaanayaan saawada ognahay liicaato baryahan dhan barnaamijkaas waxaa fajac nooga dhigay ninkan walaalkeena ah kadib walaalkay liibaan waxa murugta la qaybsan walaalkeen liicaato oo maxaa la sheegay asigan oo safiido soo duuban karin mar alaala markuu fiideo soo duubay oo dhibaato badan kala kulmaayo Allahi wa barakaatuhu asxaabta idil ahaantiin dhamaantiin meel walba joogtaan waa idin salaamay halkaasi toos ah nagu daawanaysan waa shanta Soomaaliyeed haddii aad ku cusub tahay please waxaan ka codsanaa si xushmad ay ku dheehan tahay in aad fiideoga noo subscribe gareyso bartigooda casay wax kaama dhimayso fiideogan loo leegaray anta waxaan wadnaa fiideo aad u liyaawi doontid liicaato oo la sheegay in la sixray iyo arinta qofka ka dambeeyay iyo lagu shikiyay wax ka ogow subhanallah aad bay u xanuun badan tahay hadduu in badan ka qosliyay maanta wuxuu kaaga baahan yahay duco aan u wada duceyno walaalkeena iyo asxaabtiisa reer Malaysia oo ilaa hadda ka walwalsan aan isla daawano asxaabtiisa say ugu falceliyeen aganahay oo maqalnay in maxaa la sheegay asigana YouTube-ka dhanka YouTube-ka in laga heesto walaalkeen liicaato oo maxaa la sheegay asigana oo safiido soo duuban karin mar alaala markuu fiideo soo duubay oo dhibaato badan kala kulmaayo waa fiideoga inaaga hadlo sa ogtihiin liibaan aadan cali liicaato nin YouTuber weyn waaye ninkaasi inta nin walba soo u garanaya ninka saaxiibkee Marwaan Arin uu ii sheegay oo waxa jirta anaga taa ka qiirooda iyo marka barnaamijka daraad aan ka hadlay oo Axmed Turki ay soo istaajiyay wax walba barnaamij dad badan waxay la soo wadaageen walaalkaaga hadaa xaasidid ama horumarkiisa aad ka hor istaagtid maanta shacabkiisa inay soo guuraan kuma imaanayaan saawada ognahay liicaato baryahan dhan baraha bulshada laguma arkin muddo dhawaan baraha bulshada laguma arkin taasoo ku cadeynayso in uu sixirka dhab yahay aad bay wax xanuun badan tahay wax walba quraanka eeba ayaa ka weyn aan u soo wada duceyn walaalkeen liicaato in badan buu nagu qosliyay maanta wuxuu nagu baahan yahay duco asxaabta markan waxa idin leeyahay